بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal barnaamijka waxaan rabaa inaan uga hadlo saddex waxyaalood waalidka ku nool Mareykanka ama Yurub u fududeynaya ilmihiisa inuu xiriir fiican la yeesho ayaan kaga hadli doonaa haddii Allah awood la heedmo. Waxaan jeclahay in dhammaan aad ka wada faa'iidi doontaan. Kow waxaan ogsoonahay wadamadan usoo hijroonay inay adag tahay carruurta in lagu koriyo. Marka waxyaalaha ugu koowaad mar walba waalidka habboon in uu sameeyo waxaa ka mid ah waxaan ku magacaabay active supervision. Waxaa laga rabaa haddii aad waalid tahay in mar walba dhaqamada carruurtaada iyo behaviorka wiilkaaga ama inantaada ay sameynayso ama gabadhaada ay sameynayso inaad mar walba la socotid. Haddii wax cusub oo qariib ah oo strange aad ku aragtid aad weydiisid aad tirahdid aabbo ama hooyo maanta sidii shalay waa ka duwan tahay ama sidii aan kugu aqaano waa ka duwan tahay, maxaa soo cusboonaaday, ii sheeg, ila sheergalay, ila wadaag waxyaalaha soo cusboonaaday. Marka mar walbaad ku aragtid wiilkaaga ama gabadhaada ficil cusub ama dhaqan cusub inaad weydiiso laga baahan yahay. Kan labaad as leeyahay mar walba ilmahaaga waxaa muhiim ah saaxiibada ay markaas la socdaan haddii ahaan lahayd iskuulka iyo haddii ahaan lahayd banaankaba in aad ka warhaysid magacyadooda, aad taqaanid waalidkood, aad taqaanid meesha guryaha ay ku nool yihiin, aad taqaanid. mar walba waxay kuu fududaanaysaa ilmahaaga in supervision fiican supervising fiican aad u noqotid oo ma garanaysaa mar walba aad la socotid. Kan labaad waxaa waaye in ilmahaaga sidoo kale aad la socotid online-ka meelaha ay ka galaan sida Facebook iyo social media-ha aadka hadda usoo farabatay. Waxyaalo xaqiiqdii aad u xun ayaa ka socda. Marka waxyaalo fiican way leeyihiin. Marka mar walba waxaa loo baahan yahay qofka waalidka ah ilmihiisa online-ka markuu galaayo dadku meeluhu uu galo in uu la socdo. Hadduu alla idmo waxaan soo bandhigi doonaa waxyaalaha waalidka u fududeyn karo ilmihiisa in uu kala socdo online-ka waxa ay ka sameynayaan marka aad banaanka ku maqan tahay oo kale. Tusaale ahaan waxyaalaha kale oo loo baahan yahay in aad ilmahaaga aad ka warhaysid waxaa waaye hab dhaqankooda waxaa soo hosgalayo sida ay u labistaan. Haddii aad arki jirtay ma garanaysaa wiilkaagii oo qamiis gashanaan jiray ama dhar fiican oo qurxoon gashanaan jiray maantana gashanaya dhar ku dhegdhegan oo kale ama waxyaalahan skinny jeanska ay yiraahdaan ama funaanad ku dhegdhegan oo kale waxyaalo ayaa socda. Marka mar walba inaad ogaatid dressing gabadhaadii oo jalbaha xijaab fiican qaadan jirtay, qamaar qaadan jirtay oo maanta xoogaa dhar ku dhegdhegan gashanaysa haddaad aragtay waxaa loo baahan yahay in aad markaas aad maskaxdaada ka shaqaysiisid aad tirahdid alla ilaahay maxaa socda, wiilka la hadal, gabadhaada la hadal, waxa socda ogow. Tan labaad aan isla hayo waxaa waaye waalidka ku nool qurbaha waxa u muhiim ah mar walba in uu sidoo kale uu sameeyo waxaa ka mid ah qodobka labaad oo ah time. in waxaa loo baahan yahay ilmahaaga aad social time aad la qaadato. Tusaale ahaan oo kale in ma garanaysaa usbuucii mar oo kale aad meel dhigataan jimcada oo kale aad saraacdaan aad soo wada mataqaan ilmahada yaryariin oo kale aad soo ciyaarsiisid aad soo wada cashaystaan ama meel aad wada tagtaan as a family ahaan way fiican tahay. guriga markii la joogo oo kale in ma garanaysaa waqtiga cashada oo kale isla casheeyo hal mar miiska lasoo wada fadhiisto la sheekaysto social time way fiican. sidoo kale waxaa ka mid ah mentoring time waxaan iraahdaa haddaad aragtid gabadhaada ama wiilkaaga inaad waqti gooni u sameysid oo mar walba aad la hadashid oo dhiirigelisid motivation aad siisid inspiration u noqotid ayaa fiican. qodobka labaad oo kale qodobka aan ku daraayo qodobka labaad ee timeka waxaa ka mid ah in ilmahaaga oo kale waqti aad worship time aad wada qaadataan. tusaale ahaan oo kale ilmahaaga haddii waaweyn yihiin maalin jimcada israaca isla soo tukada masaajidka isla taga mataqaana weekendiga oo kale jimcada sabtida axadda oo kale soo wada tukada. guriga markii la joogo oo kale haddii aan laga gaarin masaajidka ku wada tukada jamaaco guriga ha lagu oogo. marka waxyaalaha dhiirigelinaya ilmaha oo mar walba ka dhigaya in ay ku ag joogaan ayay ka mid yihiin. educational time marar qaarkood waxaa loo baahan yahay in aad usbuucii hal maalin oo kale aad wada fadhiisataan qof walba kitaabkiisa ama buuggiisa uu akhristo oo 30 minutes ama 1 hour maalintaas educational time aad isla qaadataan oo qof walba uu mataqaana uu waxbarto. qodobka saddexaad waxaa loo baahan yahay ilmahaaga inaad u noqotid role modeling. tusaale fiican waa inaad u noqotid role model fiican waa inaad noqotid. tusaale ahaan oo kale xagga cilmiga ilmahaaga haddii ay ku arkaan adigoo dhakhtara, adigoo injineera, adigoo shiiqa, adoo wax baranaya most likely gabadhaada ama wiilkaagii aday kuu dayanayaan way ku raacayaan sababtoo ah waxay haystaan qof fiican oo ay ku daydaan oo hooyadood ama aabahood ah. qofka qaybta labaad oo role modelka aan kala hadlayo ama tusaalaha fiican aan kaga hadlayo waxaa waaye xagga cibaadada oo kale. ilmahaaga haddii ay ku arkaan gabadhaadii wiilkaaga haddii ay ku arkaan adigoo salaadii on time ku tukanayo
adigoo soomkaagii mataqaanaa isniintii iyo khamiistii soomay, adigoo maalmihii kale oo sunnada ahaa soomay, mar walba way kugu dayan doonaan. Adigoo hadday ku arkaan waalidkaagii ama hooyada ama aabaha ama dadkii qaraabada ahaa si fiican ula hadlaaya, way kugu dayanayaan. Laakiin hadday ku arkaan adoo been sheegaya ama taleefanka markaa ku hadlaysid ama waxyaalo kale sameynaya, wax kala qabeynaya, way kugu dayanaya iyagan. Marka waxaa loo baahan yahay role model fiican xagga akhlaaq wanaagga in ma garanaysa ay kaaga daydaan. Tan ugu dambeysa waxa waaye mannerismka ama akhlaaqda, sida aan soo sheegnay oo kale, mar walba inaad runta sheegtid, mar walba mataqaanaa caruurtii aad ku dhiirigelisid inay run sheegaan, in ay sadaqadii la baxaan. Waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha dhiirigelinaya ilmahaaga ama caruurtaada in ay noqdaan dad fiican oo mar walba kugu xiran ayay ka mid yihiin. Marka insha Allah soo gudbin doonaa video noocan oo kale ah kadib intaan mar kale is arki doono. Sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.